assalaamu calaykum. Dalka labaad ee ugu qanisan adduunka iyo waddankii ugu horeeyey ee oggolaada gaadiid bilaash ah dhammaan muwaadiniinteeda. Shaqaalaha ugu hooseeya waxa uu qaataa €1,900. 5% muwaadiniinteeda ma haystaan dhalashadeeda. In ka badan 200,000 oo qof ayaa maalin walba soo booqda. Dadkeedu waxay kala haystaan 170 jinsiyadood oo kala duwan. Ma jiraan wax la yidhaahdo masaakiin. Luxembourg, dal cajiib ah, dal ka duwan gebi ahaanba dalalka caalamka. Ku soo dhowaada muuqaal cusub. Marka Luxembourg la sheego, muuqaalka ugu caansan magaaladan waa dhaqamo kala duwan iyo kala duwanaansho, maadaama dhulkeedu ay ku nool yihiin in ka badan 170 dad jinsiyado kala duwan. Sababtoo ah waxaa ku wareegsan 3 waddan oo taariikh fac weyn leh. Waxaa magaaladan ka sooca magaalooyinka kale ayaa sidoo kale ah in 45 ka mid ah ku dhowaad 100% dadkeeda aanay ahayn muwaadiniinteeda, yacni dhalasho Luxembourg ma haystaan, taasoo ka dhigaysa inay bixiso suuq weyn oo shaqo loo soo doonto. Waxaana ku soo qulqulaya shaqaalaha ka imaanaya dalalka xuduudaha sida Faransiiska, Biljamka iyo Jarmalka. Nidaamka waxbarasho ee Luxembourg waxa uu caan ku yahay heerka sare ee waxbarashada iyo qaab dhismeedka dhammaystiran oo u adeega ardayda laga bilaabo dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed. Waxbarashadeeda waxaa ka muuqda dhaqamo badan marka laga soo tago goobaha waxbarashada dawliga ah. Sidoo kale waxay leedahay dugsiyo barayfad ah oo loo arko inay yihiin nidaam waxbarasho kuwa ugu fiican adduunka. Tani waxay hubinaysaa in carruurtu ay helaan bilow waxbarasho, waxayna ku dhex koraan nidaamkaas kaas oo si joogto ah ula qabsanaya isbeddelada adduunka. Masaakiin faqiir ah dalkan boos kuma laha. Luxembourg waa mid ka mid ah waddamada heerka sare ee heer nololeedka shakhsiga. Mushaarka ugu yar ee shaqaalaha magaaladan waa €1,900. Celcelis ahaanna mushaarka dalkan waa €5,900. celcelis ahaan mushaarka waa dalka ugu sareeya Yurub. Luxembourg dal xajmi yar balse saameyn weyn leh. Inkastoo ay tahay dalalka yaryar ee Yurub, laakiin waa waddan aad u furfuran. Luxembourg sidoo kale waa waddamada hogaamiya dhaqaalaha wareegtada ah, kaas oo looga dan leeyahay in lagu dhimo qiiqa iyo dhimista alaabta qashinka ah iyadoo lala kaashanayo horumarinta hababka caafimaadka. 5 walxood oo astaan u ah hoggaanka Luxembourg. Midda ugu horeysa waa kala duwanaansho. Midda labaad waa isgaarsiinta, taas oo ka dhigaysa inay dadka si fudud ku wada xiriiraan. Midda saddexaad waa joogteynta horumarka, sida mas'uuliyiintu u arkaan in mustaqbalka uu ku jiro waa joogteynta kobaca dalka. Sidaa darteed waxa ay diiradda saarayaan hawlaha iyo mashaariicda kor u qaadaya hadafkan. Midda afaraad waa hindisaha waayo-aragnimada iyo horumarinta waayo-aragnimo cusub. Midda ugu dambaysa ahna tan ugu muhiimsan waa ka faa'iidaysiga miro-dhalka ee kheyraadka iyo quruxda dalka. Tirada dalxiisayaasha imaanaya Luxembourg ayaa sidoo kale lagu qiyaasaa 1.5 milyan bil walba. Luxembourg waa waddan horumaray oo leh dhaqaale horumarsan. Sidoo kale waxaa lagu gartaa kobaca degdega ee xooggan iyo heerka sicir bararka oo ah mid hooseeya. Sidoo kale dalkan shaqo la'aan kama dhacdo. Xilliyadii hore warshadaha dalkan waxay u badnaayeen soo saarista birta, laakiin maanta dhaqaaluhu wuxuu noqday mid kala duwan, halkaas oo ay ka gashay warshado cusub oo kala duwan sida warshadaha kiimikada, mashiinada qalabka culus, warshadaha qaybaha baabuurta iyo warshadaha kale ee muhiimka ah. Luxembourg waa xubin aasaasi ah oo ka tirsan Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, NATO, waxayna ka mid noqotay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay markii ugu horeysay 2013 iyo 2014. Taariikhda aasaaska dowladda Luxembourg waxay u laabanaysaa dowladda Romania. Bilowgii waxay ahayd qalcad dalka Romania. Magaca Luxembourg wuxuu soo muuqday markii ugu horeysay sanadii 963 kadib aasaaskii dowladda ee Conde Sejfered oo ka soo farcamay taliyihii boqortooyada Farankish. Waxay markaas ahayd dhufays yar oo la oran jiray Luxembourg. 5tii qarni ee xigtay waxaa ka talinaysay qoyskii Luxembourg, kadibna xukunka wuxuu u gudbay qoyska Habsburg. qalcaddii dowladda noqotay. Luxembourg ayadoo qalcad ahayd inay noqoto dowlad saameyn leh, waxaa u sahlay siyaasad guur oo xikmad leh.
oo si fiican looga fiirsaday iibsashada dhulka iyo dagaal haddii loo baahdo. Laga soo bilaabo qarnigii 12aad, Luxembourg waxay noqotay xarun dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid diineed. maanta Luxembourg waxay leedahay nidaam waddooyin dhulka iyo badda, khadad tareena oo casri ah oo horumarsan. Marka laga soo tago dekedaha, waxay leedahay garoomada diyaaradaha iyo shabakadda isgaarsiineed ee ugu horumarsan galbeedka Yurub. Luxembourg sidoo kale waxay leedahay nidaam koronto oo hufan oo aad u wanaagsan. Luxembourg, ama sida rasmiga ah loogu yeero Grande Duchy of Luxembourg, waxay ku taalaa galbeedka Yurub, waana waddanka labaad ee ugu qanisan adduunka. Dhanka galbeedka iyo waqooyi galbeed waxaa xad kala leh Belgium, bari iyo waqooyi bari waxaa xad kala leh Jarmalka, koonfurta waxaa xuduud kala leh Faransiiska. caasimadda waa Luxembourg City, waana mid ka mid ah caasimadaha midowda Yurub sida Brussels iyo Frankfurt. waxaa kaloo ay leedahay maqaamka u dhexeeya caasimadaha Yurub.